waxaan nala fadhiya laba qofood oo ka socota kooxda fanka Soomaaliyeed oo magaaladeena degan. waxaan marka hore aan ku soo dhaweynaa nala fadhida dhinacan bidixda iga fadhida qofta la yiraahdo Luul Cali Warsame oo kamid ah ama kamid ahaan jirtay hobolladii waabariga qaranka qaybta folklore-ka ama hidiga dhaqanka oo maanta nala joogta. sidoo kale waxaan nala fadhida Safiya Tusmo oo iyadana ah fanaanad qaran oo laga wada yaqaan magaaladeena iyo magaalooyinka kale intaba. barnaamijkana wali waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii ahaa barordiiqdii iyo tacsiideyntii loo sameeyay xildhibaanadii Saada Cali Warsame isla markaana ahayd fanaanada qarankeena naga geeriyootay ayaan barnaamijkeedii wali dhexda uga jirnaa. marka hore kusoo dhawaada barnaamijka. ku dhawaa maadsantahay adaa mudan. maynoo sheegi kartaan marka hore sidaa dareenkiina aad maaragtay u dareenteen arrintaan inta soo gaartay Soomaali weyn oo dhan ay ka wada danqadeen dhibaatadan weyn oo dhacday sidee u aragtaas Luuli? والله horta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxa waaye Saado qof waxay ahayd walaalo aan nahay oo Aisho bilax aan nahay intaas oo sana isla shaqeynayay. maxay ahayd geeridu horta waa xaq qof walba way sugaysaa geeridu way sugaysaa laakiin waxa waaye waxa naxatinta leh waxa waaye sida ay u dhimatay loo dilay ayaa oo lagu xun yahay maan geeridu waa xaq. Saado kaliya ma dhaafteen waqtigaas ay maanta ay dhimatay ma dhaafteen waqtigeedu ku dhimatay haddana waxay ku dhimatay subxaanallah waqti ay maxay ahayd ayadoo sooman 25 bishii ay ahayd gacanka gardaran ay dishay. marka waxa waaye geeridu waa xaq laakiin waxaan ka tiirayaasanahay oo aan ka xunnahay oo ay tahay dhibka iyo dacadilka loo geystay haddana ay tahay midda loo geystay midda maanta dumarka Soomaaliyeed oo dhan lagu hayo ay tahay tacadiga oo aan ka xunnahay oo aan ka afeef dhiganayno aan dawladda iyo ragga Soomaaliyeed ba aan leenahay waa in la ka daayaa maadaama maanta wadanka uu ku socdo hooyo daraadeed. waayo maanta ragga iyo dumarkii maanta wax qiiro badan oo ama wax qabta ama wax tara ama wax suubiya waa dumarkii. marka dumarka nagiina tii oo maxay ahayd wax taqaanay iyo tii aan wax aqoonin iyo tii nooleed iyo tii jikada ku walaaqanaysa hadii mid ayadoo jikadeedii ku fadhiso maxay ahayd shaah ilma u korsanaysa lagu rogay tii socotay wadaniga ahayd oo intaas oo sana halkamay soo socotay la xabado lagu waabiyo waxa waaye waa arrin u falxun waaye aad iyo aad aan uga farxunahay anaga uga tiirayaasanahay maadaama annaka aan nahay fanaaniintii hobolada waabari haddana aan maxay ahayd dad Aisho milaxa oo maxay ahayd aan ahayn maaha ana xataa maanta hadda wali Saada ilama aha qof waxay la tahay wali aniga Saada way muuqataa qof walaashay ahayd. marka waxa way haddana waxaan aad uga sii xumahay maanta oo aan uga tiirayaasanahay oo meeshaan rabaa inaan uga faa'iideysto Maxamed Cabdullaahi Sungu maanta asagana dhibaatada haysato maayo Saada maanta gabadhiisii ahayd maanta meeshii ay fadhisay waa ku cilaysay. marka waxaan leenahay Maxamuud oo gabadhaadi u duceey maxay ahayd qof walbana geeridu way taabanaysaa. Saadana waqti fiican ay dhimatay maxay ahayd ma samir ima Allah ka siiyo iskara samir joy ha israacsiin waayo qof walba moodku uu taabanaya laakiin qof dhanaa ka tagtay waa ognahay garabkaadi yaa baxay maanta annagana kulma joogno waxna ku matri karno. marka waxaan ka baryaynaa gabadhaadina u duceey adigana qalbiga Allah ku dajiyo. waxaan kale meeshan tacsiir rabaa inaan uga diro anigoo ku hadlayo kooxda hobolada waabari oo kooxdii ay tahay kooxdii oo dhan waa muusikiisa waa ciyaartooy waa jilaa waa mulaxan waa gabyaa intaas oo dhan waxaan uga wakiil ahay inaan tacsiida uga gaarsiiyo gabadhaas ilaahay ha u naxariisto. waxaan kaloo tacsiid uga gaarsiinayaa bahdi reer Warsame oo aan leeyahay reer Cali Warsame oo dhan ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo. ilmaheedii xuriyo maanta xuriyo weyn waxa leeyahay ilmaheeda idina waxa leeyahay samir iimaan ha idinka siiyo. waa qof naga tagtay idinka kale idinkama tegin annagana kulli waa idinla joognaa waalidkiina yaa nahay. marka ilaahay samir iimaan ha naga siiyo ilaahay jannada firdawsa ugu waraabsho ilaahay qabrigeeda waasaca uga dhigo. aamin aamin. waan mahadsantahay maanta maadaama meesha aad nagu casuuntay oo aan tiiraayada inaan ka hadalno oo aan codkana aan ka dhiibano aad iyo aad mahadsantahay sida sharafna soo dhaweysay. Safiya Tusmo maxaad ku dari lahayd adna? inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daaqatul maut. walaalo ma dhinto ilaahay noolada waa dhintay. Saado laba jeer bay dhimatay. mar xaqi baa u yimid oo maaragtay xaqi ilaahay baa helay. haddii aynan xamar tiganay xabadaasi ku dhicina kullayba waxay ahaan lahayd intii dhimato oo maanta aasnaato because timekeeda intaasuu ku ekaa. marka labaad oo leeyahay way dhimatayna waxay u dhimatay wadankii Soomaaliya u dhimatay. Saado waxay ka mid tahay halgamayaashii Soomaaliyeed
ee usoo halgamay Soomaaliya kuwii tacabkoodii la qasaariyay kuwii Ingiriisku dilay kuwii Faransiisku dilay kuwii Etoobiyaanku dilay raggii Soomaaliyeed ee inoo soo halgamay ee rabay maaragtay shanta Soomaaliya intayna shantaba noqonin inay gumaysiga ka baxdo ayay ka mid tahay taasi waa taa weeyaan talabaad ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan ka taxsiyadeynaya samir iyo iimaan Allah dhamaanteen ha inaga siiyo saada qoyskeedun kamay dhiman qabiilkeedun kamay dhiman qaranka Soomaaliya kamay dhiman qof kasta oo afka Soomaaliya af Soomaali ku hadla ayay ka dhimatay waxay ahayd legend bay ahayd waxay ahayd xidig bay ahayd naxariistii janno Allah maaragtay naxariistii janno Allah siiyo taasi waa taa weeyaan waxaan ku yara darsan lahaa waxaa la yidhi naf haddii la heli nabiyadii kama umaageen eedaan wanaagow bilaal kama agoogteen abwaan kalena wuxuu yidhi qabriga iyo xabaalaha rag waa lagaga quustaaye nin gumaysi kaa qaadi baan laga qaboobay geeridu dee waasaan hore usoo sheegno dadkoo dhaniba sheegayaan oo waa xaq weeyaan laakiin waxaa fool xumo ah saado waxay isku darsatay saddex bay isku darsatay barmigeydi ah oon la dili jirin markuu dadku hagaagsanaa ay ummadda Soomaalidu ay ahayd ay Soomaalida ahayd waxa number 1 waa fanaaniintu qabiil male waxaan inagu waad aragtay aan dhageysanaa Faqira Dhiisiyo maxaa la yiraahdaa Michael Jackson iyo dad aad afku u fahmaysid wuxuu leeyahay jeebada lagu wada sitaa oo la dhageysanayaa qabiil uma dhageysanayno waxa loo dhageysanaya just waa fanaan bulshada uu uma dadaalinaya saado fanaanad bahayd fanaaniintuna waa barmageydi taasi waa mid number 2 saado waxay hooyo maaragtay hooyooyinka oo dhan ayaa dareemaya dadka maaragtay de hooyo oo dhan baa dareemaysa dhibaatada gabadha la gaarsiiyay waayo ilmay ka tagtay hooyo lama dili jirin hadday gaal tahayna lama dili jirin hadday muslim tahayna lama dili jirin dagaalka marka lagu soo qabto asxaabtii adoomaa laga dhigi jiray laakiin dilku hooyooyinka mamnuuc ka ahaa talabaad waa taas weeyaan number 2 saado waa gabadh Soomaaliyeed ah I mean how can you do that gabadh Soomaaliyeed ah oo walaasha ah inaad dishid aad waliba u dishid si aan maaragtay fool xumo ah ood ku faaruqisid soddonka xabo qasnada ku jirta macnaha sida saada loo dilay si bini aadan loo dilay ma ahayn si cadawtinimo ah oo maaragtay hateful crime ba meeshaas ka dhacay ta saddexaad taas weeyaan number 2 dagaalku ma mid dumarkii rag hadda u bilaabmayba ma dagaalana anagoo dhan dumar haddaan hayde hub ma qaadan ragga ma layna idan saada nin baa dilay ha ragga Soomaaliyeed dalkiini baa demiseen dumarkiini baa dayacdeen caruurtiini baa maaragtay tahriibayso oo badaha meydkoodii meel walba yaala annagiiba qaxooti ah oo under maaragtay nin kale gurigiisa ku nool haddii hadda ay noqoto in dumarkii iyo caruurta la laayo sheekada hala bedelo qabiilkan ha laga saaro calamadan aad ulqinaysiin oo gaalada kaga dawarsanaysiin ha laga saaro dumar iyo rag ha laga dhigo ninkii markaa badiyo wadanka u hadh maybe inay dumarkii iyo ragga daweyn garayn lahaayeenoo wadanka aan xaaladiisa wax ka bedelinhayn saada waxaan leeyahay naxariistii janna Allah ka waraabiyo ummadda muslimiinta oo dhan ee Soomaalida especially ka naxdayna ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo I don't think saado kale inay Soomaali ka dhalanayso to be honest with you habla stars jiray luul oo kale waatan waa fanaaniintii waa bari oo stars bay dhamaantood ahaayeen laakiin qof sidaa u dhiiran saado waxay ahayd qof dul dhigta nafta qof kasta oo ay aragto in laga gardaran yahay saado waxay usoo halgantay Soomaali galbeed waxay usoo halgantay Soomaali waqooyi ay nafta dul dhigtay daga markii siyaad barre wadanka haystay saado waxay ahayd qofka kali haatay ee siyaad barre hort istaaga ee yiraahdo waxbaad leynaysa dad baad leysay saado waxay tiri markii la isku soo baxay garoonkii banaana rasaas lagu baasabeelay dawladdu harkaga dhigay raggii baa ku dhici waayay dadku ashuun bay ku adimi jireen waqtigaas saado waxay ahayd gabadhii xabadka u tumatay ummadda reer Soomaaliland ee markaasna ahayd reer Soomaaliya ahayd ee maaragtay u dagaalantay waxay u dagaalantay ogaadeen waxay u hadashay maxaan ku dhahdaa ummadda South Africa ku nool waxay u hadashay micnaha waxay ahayd gabadh bulshada inta dayacan oo dhan doonaysa inay gacan ka siiso dhibaatada iyada oo aan maal ka rabin iyada oo aan abaal ka rabin iyada oo tusaysa inay tahay maaragtay qof ka xun dadka dhibaatada markaa haysata naxariistii janna Allah ka waraabiyo saadintaas aan kaga baxaya waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed sidan si ha isku dhaanta I hope inay dhimashada saada dad badan oo kala maqnaa midayso isku soo celiso aad